haddii aad adigu hilmaamtay iyadaan ku hilmaamayn inay ku haleesho. noloshu way gaaban tahay, ilbiriqsi ayay wax kasta isku beddeli karaan. kuwii dhintay shalay waxay lahaayeen qorshayaal saaka ah. kuwii dhintay saaka waxay lahaayeen qorshayaal caawa iyo berri ah. qof seexday isagoo caafimaad qaba ayay sidaa naftii kaga tagtay. aabbe isyiri reerkaaga u soo shaqeey ayaa loo keenay meydkiisii. hooyo istiri reerkaaga cuntada u kari ayaa tacsideedii la dhigay. qaar baa iyagoo ku mashquulsan ururin maal iyo xoolo ka tegay adduunkan oo dhan. qaar baa laga qaaday iyagoo quraan akhrisanaya. qaar baa geeriyooday iyagoo ku sugan masaajid iyo makaan fiican. qaar bay kaga boodday iyadoo ku sugan meel xun iyo munkar. qaar baa iyagoo ciyaar iyo baashaal ku jira malakalmood soo dul istaagay. iminka oo aad neefsanayso adigoo nool qof ayaa qaatay neeftiisii u dambaysay oo adduunka ka tegay. marnaba dib ha u dhiganin inaad alle u noqoto, dambidhaafna weydiisato, samaysato camal wanaagsan, tukato salaadda, badiso ducada, akhrisato qur-aanka, ka fogaata xumaan kasta noocay tahay mid yar iyo mid weynba. ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo. mar haddaanan nolosha lagu waarayn, alla subxaanahu wa tacaala ha inoogu khatimo khaatimo khayr qabta. fariintan gaarsiiya walaalaha muslimiinta, sabskrayb kanaalka. wassalaamu calaykum.